السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أقياتي تبان سلامي عشر كان عاوز أقول سبتين هاي سيدا ديسكيجا وقفير لهن إن إيروركا أما باك سيكتوركا إن أنا كسمعنا إن سي كمان مركا استارت ميو يا فرسا ماشي حكو قرسا CMD أيا كقرسا كدمنا ماشي أيا كوسبحايو إن كمان ديجا أيا رايت كلي كل ده وحلا ده هاي running administrator وحلا جاب مركا قارقود إنه كوسبحينين haddii uu ku soo bixi waxa tagaysaa meesha ku qoran tahay pin to the start menu ayaad ku dhufanay kadibna haddana mar labaad ayaa ku soo laabanay sidan ayuu kugu soo baxaya marka sidan kugu soo baxo right click ayaad dushiisa ku leedahay running administrator ayaad ku dhufanaysaa kadibna sidan ayaa ku soo baxaya waxaad ku qoraysaa meeshaas CHKDS disk ayaa ku qoraysaa kadibna space ayaa bixaysaa waxaa ku qoraysaa calaamada slashka ayaa ku qori kadibna R ayaa leedahay kadibna enter ayaa leedahay isla markiiba wuxuu sameynayaa computerkaaga markuu restart soo sameeyo back sectorka ka saaraya haddii aan yes dhahno markii hadhow computerka restart oo imaado ayuu sameynayaa wadada labaad ee sameynaysa waxay tahay oo stepka labaad sana waa sameyn kartaa tan labaad aad sameyn kartana waxay tahay start menu ayaad furisaa my computerka ayaad ku dhufsanaysaa kadibna diskiga ratid inaad saarto errorka back sectorka ka ilaalisid ama ka saarto waxaad sameynaysaa right click ayaad dushiisa ku leedahay kadibna waxaad leedahay properties ayaa leedahay kadibna tools ayaad tagaysaa kadibna meeshaan error checking waxaad ku dhufanaysaa meeshaan check now ayaad ku dhufanay meesha waxaa ku qoran scan for the untemporary recovery and back sector ayaa saaraysaa kadibna restart ayaa leedahay marka wuxuu ku weydiinayaa haddii aan dhaho bilow haddaan dhaho markii computerka restart ayuu sameynayaa anina ma rabo inaan kaamirada hagaajinto marka sidaas ayaa dariiqa labaad sameyn kartaa marka insha Allah biidnillaahi kariim waxaan rajeynayaa ka faa'iideysan doontaan markii hadda computerka uu restartna imaado ayuu sameynayaa insha Allah biidnillaahi kariim wixii su'aalana comment ayaa ku soo qori kartaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wajazaakumullahu khayran